dhismaha argada kilomitir 0 oo ay si casri ah u dhistay wakaaladda horumarinta dhismaha qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa xarig ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. goobtan ay bilicda ka muuqato waa kilomitir 0 waana halka ay ka bilaabato tirada cabirka laga qaado guud ahaan gobolada dalka iyo degmooyinkiisa iyadoo darbiga ama gidaarka dhismaha lagu qoray qaar kamid ah degmooyinka dalka iyo inta ay isku jiraan degmooyinka Cabdicasiis Shibis iyo Shangani ay sidoo kale kulmisaa argada kilomitir 0 waxaana gudoomiyaha degmada Shibis Cabdiraxmaan Siid Cali oo ka mahadceliyay hirgelinta dhismahani xaruntan lagu baran doono cilmiga juqraafiga inta badan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dhalinyaradii ka faa'iideystay inaan naqano arintaana waxay bogaadinaysaa in dhalinyarada ay bartaan juqraafiga iyo qaababka ay gobolada isu jiraan maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka Soomaaliyeed Sareey Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sheegay in dhismaha argada kilomitir 0 ay ku wareejin doonaan dawladda hoose xamar in aanu soo celino bilicdii iyo dhismaha u jeedaan quruxda badan goobtan taariikhiga ah taariikh ku leh caasimadda Soomaaliya taariikhna ku leh dalkeena oo dhan maadaama ay tahay meeshii ay ka bilaabanaysay muxuu ahaa masaafada u dhaxaysa Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maantana anoo ku hadlaya magaca wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed iyo magaca hay'adda sirdoonka iyo nabadgudda qaranka waxaan rabnaa inaanu furaheedii ayadoo bilicdaas iyo quruxaas la ku wareejino maanta adiga kugu wareejino taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu ka hadlay ahamiyadda ay goobtan leedahay waa meel taariikh leh dadka xamar u joogi jiray baa garanaya waa meeshii annagu markaanu saraakiisha nala qaadanayay aanu shaqada ka bilownay weeye wakaaladda halka ku taala waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaanu ka soo qayb galno iyadoo wajigaas leh hawshanina hawl sahlan maaha waa hawl caqli iyo xoolo iyo fakar badan la geliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in maamulka gobolka oo kaashanaya dawladda federaalka Soomaaliya ay xoojin doonaan hirgelinta mashaariic waxtar u leh bulshada iyo qaranka taasi marka waxay abuuraysaa rajooyin dadka ka shaqeynaya horumarka magaaladu ay moralku ugu sii dhisayso inay waxyaabo badan oo sidaan oo kale ah ay dib u soo celiyaan ama ay kuba daraan oo kuwa cusub ay noo sameeyaan walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa haddii alla idmo nadaafadda iyo bilicda goobaha adinku aad ku nooshihiin ama degmooyinkiina oo si aad iyo aad ah aad uga shaqaysaan maamulka gobolka Banaadir wuxuu gacan idinku siinayaa shaqadaas la idin diray oo ay u horeyso nadaafadda iyo bilic soo celinta waxa kale oo si gaar ah gobolka Banaadir isagoo kaashanaya dawladda federaalka ah madaxdeeda wuxuu ka qayb qaadanayaa oo si gaar ah mas'uuliyadeeda u qaadanayaa dib u dhiska wadooyinka laamiyada iyo amniga Nuur Saciid Talesin TV magaalada Muqdisho